haweeney u dhalatay dalka Ingiriiska ayaa qabsatay hadalhaynta warbaahinta iyo baraha bulshada kadib markii ay dhashay canug aysan uurkiisa xitaa ka warqabin. Kelly Hager oo 21 jir ah ayaa dukaan ku yaala meel xaafad ah waxa ay ka dalbatay suuli iyadoo moodeysay inay xaajo caadi ah u baahan tahay. Hase yeeshee waxaa la yaab noqotay markii ay suuligii ka soo baxday iyadoo wadata cunug yar oo ay hooyo u tahay. Miss Hager ayaa sheegtay in iyada lafteeda ay lama filaan ku noqotay arrintan maadaama aysan wax war ah ka haynin in ay uur lahayd. Dhacdadan fajicisada noqotay ayaa dhacday maalintii Khamiista ahayd ee isbuucan. Shaqaalihii dukaanka ayaa si degdeg ah ugu gurmaday si ay u caawiyaan haweeneydan, balse waxay umushay ka hor inta aysan kalkaaliyaasha imaanin. Haweeneydan ayaa waxay ku tilmaamtay la yaab, balse waxay sheegtay in ay u ahayd maalin cajiiba. Waxay u mahadcelisay howlwadeennada goobta ganacsiga iyo dhammaan dadkii shacabka ahaa ee garab istaagay, isla markaasina ugu deeqay qalabka carruurta. Hooyadan ayaa hore u lahayd 2 carruur ah, mana aysan ogeyn goorta ay uurka yeelatay iyo sida ay waqtigeeda ku dhamaysatay toona. Hooyadan oo lagu magacaabo Vivienne Hager ayaa xaqiijisay in qoyska oo ay arrintan la yaabeen. Warka ku saabsan dhalashadan kadidka noqotay ayaa lagu shaaciyay bog ka mid ah bogagga Facebook-ga, halkaasoo ay Hager ku qortay: "Waxaan u baahanahay naxariista bulshada Wisbech. Gabadhayda ayaa cunug ku dhashay suuli ku yaala magaalada. Wax diyaar garow ah ma aysan sameynin maadaama aysan ka warhayn uurkeeda. Qof walba oo ugu deeqa qalabka carruurta waa loo mahadcelinayaa." Dadweynaha ku nool magaalada ayaa isu soo baxay si ay u caawiyaan haweeneydan sida mucjisada u dhashay. Maalintii Jimcada ahayd, hooyada waxay baraha bulshada soo dhigtay sawir laga qaaday iyada iyo canugeeda yar ee musqusha ku dhashay, waxaana ay tiri: "Waxaan jeclaan lahaa inaan u mahadceliyo cid walba oo nagu deeqday qalabka kala duwan ee carruurta. Runtii waan idin mahadnaqaynaa." Sidaasi ayay ku soo qortay sawirka ay soo dhigtay barteeda bulshada. Milkiilaha dukaanka ay haweeneydan suuliga ku umushay ayaa sheegay in dhacdadaasi ay qaadatay wax ka yar 10 daqiiqo, waxaana ereyadii ay dadku ku dhawaaqayeen ka mid ahaa: "U yeer umulisada."